haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli. toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa doctoresa Sacadiya Cabdilaahi Siyaad oo ah madaxa macadka Hano Academy ee fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho. Kusoo dhaw marka hore barnaamijka Sacadiya. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Ridwaan. ugu horeyn haddii aad sharaxdo macadkan waxa uu yahay iyo xilliga la aasaasay. Hano Academy waa academic progression iyo polytechnic academy oo qabta xirfadaha gacmaha iyo aqoon kororsiga shaqo abuurka oo dhalinyarada aan ugu talagalnay iyo research iyo consultants iyo hidaha iyo dhaqanka. waxaan markii ugu horeysay aan ka register gareeyay gobolka Banaadir 2014 waa gartay marka waxaad ula jeedaa in arrimaha dhaqanka iyo xirfadaha shaqo abuurka aad ugu talagasheen in macadkan uu qabto. hahay waxaa kaloo u dheer luqadaha Ingiriiska iyo waxyaabaha loo yaqaan capacity building ama professional development koorsooyin oo aan ugu talagalnay dadka shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha u shaqeeyaan hay'adaha caalamiga ah macallimiinta iskuulaadka macallimiinta jaamacadaha dhigaan waayo qofka aqoonta leh wuxuu u baahan yahay in uu aqoontiisa siyaadiyo qofka aqoonta hadii markasta uu dhiibo asna wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa oo kala toda adduunka laga isticmaalayo in uu ka barto. marka sidaas oo kale tad waxaan xoog u saarnay in professional development koorsooyin aan dhibno iyo luqadaha macadka oo aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka soo baxay iyo khibrada kaleba. waxa kaloo macadka uu suubiyaa waxyaabaha loo yaqaan TVET technical and vocational education training oo xirfadaha gacmaha la isku yiraahdo sida cunno kariska guryaha dhisitaankooda korontooyinka carpentryga makanikada beeraha sida ganacsiga loo suubiyo waxyaabahaas oo dhan run ahaantii waan suubinaa. waa gartay marka ma lacagaad ka qaadaan ardayda mise si bilaash aad wax ku bartaan? way isku dhex jiraan waxay u dhaxeeyaan saddex group hay'adaha caalamiga ah oo internationalka ah ayaa noo keenaan listi oo qaxootiga la soo celishay mas dadka barakacyaasha ah dadkaas oo kale dabcan hay'ada ayaa ka dhiibaan ayaan la shaqeynaa anaga institution waxbarashaan nahay jaamacad ma nihin laakiin waxaan diyaarnaa dadkii jaamacada aanan gelin mase galeen oo rabaan aqoontooda inay sare u qaadaan macadka wuxuu kaloo dhiibaa ishag alaabadaha hidaha iyo dhaqanka loo yaqaano farsamooyinkooda loo suubinayay iyo luqadda Soomaaliga oo qoritaankii iyo akhriskii iyo xisaabaadkii oo kale to laftigiis because qofka ma suubin karo shaqo wanaagsan ilaa iyo wax yar ba Allah ka dhigay inuu wax akhri yaqaano waxna qori yaqaano soo base-kaas oo dhan ayaan dhalinyarada ka dhisnaa. waayahay waxaad ii sheegtay inta badan inay jiraan xataa xirfado kooban oo shaqo abuur ah oo dhalinyarada aad u samaysaan ma jiraan dad aad leedahay waa ay aflaxeen oo shaqooyin ay heleen markii halkan ay wax ka barteen? dad aan ganacsi anaga aan u furnay ayaa jiraan ka caawinay waxaa jiraan dad hodheelo ka shaqeeya iyo maqaayado dad kambaniye ka shaqeeyaan oo ishag local ah kambaniyada wadanka ugu waaweyn qaar kamid ah anaga run ahaantii ka caawinay markuu isku iyo dad kale dibadaha waxbarasho u aadeen waayo waxaan suubinay qof Allah iyo qofkii rabo in uu wax barto macadka Hano Academy waxaan siinay 3 optionka ugu horeeyo waxaan dhahnaa qofkii mutacallin ahaa oo jaamici ahaa oo jaamacada ka soo baxay oo damacsan inuu masters mise PhD dibadaha u aado waxaan siinaa fursad oo luqadihii ku barto fursad oo aqoomihii kale tood ka maqnaa haddii IT ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd sidoo foomka u buuxsan lahaa waayo scholarship-yada internationalka ah waa wax free ah waa wax aanan la iibsanin waa wax qof kasta oo bini aadan oo xaq u leeyahay inuu dalbado
waxyaabahaas oo kale tood waan u fududaynaa waa optionka koowaad oo dadka aqoon-yahaninta aan ugu talagalnay dadka kale tood oo shaqo doonayaasha ah oo xirfado aan lahayn waan caawinaa xirfadihii ayaan barnaa for example oo kale tood qofkii rabo inuu waiter noqdo kale shaqadii waiternimada ayaan barnaa mase cunno kariskii dabadeed annaga ayaa shaqo u raadino company kale ayaan qabnaa 2 company oo midna la yiraahdo Badigoob online oo dhalinyarada freelancerada ah ayaa laga soo dalbadaa oo loo shaqeeyo dadka u shaqeynayaan mid kale toodna waxa la khibrad recruitment agency waxaan u shaqeynaa model like head hunting oo qofkii shaqa dadka shaqada siinaya ayaa description-kina siinayo exactly qofkaas uu u baahnaa ayaan u keenaynaa optionka kale oo saddexaad oo u furan qofkii wax ka baranaya macadka Hano Academy waxa waaye in uu leeyahay hal abuur ganacsi waxaan qabnaa Hano Social Innovation Hub waa innovation hubkii ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho laga suubiyo waxaan aasaasna 2016 dhalinyaradaas marka oo hal abuurka ganacsiga leh waxa laga yaabaa in ay ku haminayeen inay suubsadaan ganacsi laakiin ayna garanaynin ka maqan tahay information ay ka maqan tahay maalgelis ay ka maqan tahay sidii networking ay wax u heli lahaayeen so waxyaabahaas oo dhan ayaan ka caawinaa coaching baan siinaa mentoring buu ka helaa qofkii tababaradii sidoo businesskiisa oo u daadihi lahaa marka saddexdaas option ayuu macadka siinayaa qofkii u baahdo servicekiisa waayahay Sacdiya muddaad joogtay magaalada Muqdisho aad ka shaqeynaysay waa ku weydiin doonaa sababaha markii hore kugu kalifay inaad u soo guurto Soomaaliya laakiin markaad eegto dhalinyarada iyo shaqo la'aanta heerka ay gaarsiisan tahay maraan booqday xaruntaadana waxaan u jeeday in dhalinyaro fara badan ay soo xaadiraan seminaarada iyo khudbadaha looga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee ganacsigu uu ka mid yahay marka maxaad ku qiyaasi lahayd shaqo la'aanta ka jirta magaalada shaqo la'aanta magaalada ka jirta aad ay u badan tahay shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaynan wadanka uu jiro fursado badan oo shaqo badan lagu abuuri karo laakiin caqabadahan haystaa waxay tahay siyaasadda wadanka oo aan deganayn electionadii dawladii oo ma arkin oo ayaga laftigoodii culeysyo iyo caqabado badan ay haysato iyo dadkani ganacsadaha ahaayeen oo dantoodii u fiirsanayaan marka waxa dhexda ku dhumay dhalinyaradii waxay u baahan yihiin dad maalgeliyo dad information siiyo dad tababaro siiyo dad mentoring siiyo marka caqabadan haysato mujtamac ahaan ayaa waxay tahay wada shaqayn la'aan qof kasto waayo qof kasto bini aadam ah aqoonta aniga iga maqan qofka kale walaalkayga ku jira marka hadii aan communication aan lahayn aan wada shaqaynaynin caqabad weyn ay u noqonaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed waayahay wax caawimaad oo aad ka heshaan ganacsatada ama dawladda ma jirtaa maya laakiin dawladdu waan isku daynaa anaga in aan la shaqeyno waayo waxaan aaminsanahay sidoo John F Kennedy hore u yiraahday ha isweydiinin like hadhihin wadankayga maxaan uga baahanahay laakiin wadankaaga muxuu kaaga baahan yahay soo anaga as shakhsi ahaan as Soomaali ahaan waxaan isku daynaa inaan wadanka caawino laakiin meel intaan fariisana dawladdu wax kama sugno waayahay haddaan u soo noqdo su'aashii haday aan ka ballan qaaday muddaad hadda halkan joogtaa waxaad ku noolayd dalka Britain maxay ahayd wixii markii hore kugu dhiirigeliyay inaad halkan ka furto machad noocan oo kale ah oo dalkan aad u soo guurto Soomaaliya waxaan dib ugu soo laabtay wadanka Soomaaliya anoo muddo badan ka maqan 2011 rag baa ii yimaadeen oo weydiiyeen in waxay rabeen inaan jaamacad la furo waxaan ku iraahday jaamacad wadanka uma baahno wuxuu u baahan yahay academic progression iyo polytechnic academy waqtigaas aan dhahayay aqoonteeda maan lahayn xirfad umaana lahayn laakiin waxaan arkay baahidii gaabkii inuu jiro backgroundkayga waa caafimaad waxaan bartay tropical medicine cudurrada faafo iyo difaaca bini'aadamka iyo medical diagnostics waxaan ku haminayay run ahaantii isbitaal oo high tech ah oo telemedicine iyo medical diagnostics suubinayo inaan wadanka ka furo
caqabad marka waxa ay qabsatay lacag la'aan ah caqabada kale toodoo labaad oo ay haysatana waxay ahayd dad xirfad leh waayo haddaad qalab wanaagsan aad keentid waxaad u baahan tahay dad kula shaqeeyo waayo adigoo keliya meeshii kama shaqayn kartid ama waxaad noqonaysaa dadkii horey kaaga horreeyey oo isbitaalaadka u furnaa alaabadihii teknolojiyada ay isticmaalayeen oo kale inaad isticmaashid oo walwalkii igu badnaayna waxay ahayd maintenance ma lahan dad jeegaraynaya ma lahan reagenciyadii ma arkino meelihii lagu store garaynayo xitaa question baa kasoo bixi karo marka waxaan rabay wadanka wax ka duwan inaan keeno caqabada marka aan arkay ugu horeysa waxay ahayd human development capacity wadanka ma lahan waxaa nagu dhacay brain drain dadkii waan haysanaa laakiin aqoon iyo skill iyo maxaa la know how nagu filan mayna lahayn gaabka marka ugu weynaa oo aan arkay 3 bay ahaayeen midka ugu horeysa oo ahayd dadkii professionalka ahaayeen oo aqoon kororsi u baahnaayeen waa qodobka koobaad dawlad ha u shaqeeyaan mase private ka mase international community-yadaba mase organization-nadaba ha u shaqeeyaan tan xigto xirfadaha gacmaha gaab weyn baa ka jirtay tan saddexaad oo aan arkay oo macadka aan ku bilownay waxay ahayd shaqo abuur sidee baan dhalinyarada shaqo abuur loogu suubin karaa sidee baa fursado loo abuuri karaa ee dhalinyaradeenna uga faa'iideysan karaan markii aan arkay run ahaantii baahidaas waxaan isku dayay in aan wadanka aan socodkayga ku soo badiyo sanadkii adiga 2 mar 3 mar baan imaan jiray 2011 ilaa iyo 2015 oo aan toos aan u soo guuray macadkiina aan shaqadiisa u bilaabay intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctoresa Sacdiye Cabdilaahi Siyaad oo ah madaxa Machadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay Muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idin leh nabadgelyo